الله الرحمن الرحيم وانيغو محمد حسن عواله waxaan halkan ku duubayaa maasal yiraahdo dheeldheel ma gali kara saaxiibka dhabeed oo ka hadlaysa qiimaha saaxiibku leeyahay waxaana maasadani ku soo baxday laba nin oo saaxiib ahaa oo muddo waqti soo wada qaadanayay oo dhibiga dheefba soo wada qaybsaday oo mid kamidii nolosha waqtiga ay ku jiraan uu ka gudbay deetana saaxiibkiisii kale uu iloobay oo rafkii iyo dhibaatooyinkii darteedu ku nacay deetana maasadan aan ka sameeyay maasadan waxay oranaysaa ha ku oranin dhaandhaan dharaarahana kuudo noloshaba dhabteedii ka wada dhibtooteen waqtigii aad dheeliday kii dhaadka noqon jiray dheeldheel ma gali kara saaxiibka dhabeedo waa dhabar xanjaadka iyo halka laga dhaqaaqay marka uu dagaal dhaco adna lagu dhirbaaxay dhinacyada laga maro jiilaal markuu dhaco xaaladii dhanaaneed noloshaba dhamaanteed kii kula dhibtoon jiray wuxuuga dhaqaalaha marka aad dhamisay geelaagu ku dhalo isna dhabanahayskii iska dhaqaalee siigadu ku dhacayso waayo dhirbaaxeen marka uu dhankaaga telefoonku soo dhaco erayada wax dhaawaca waa kan kii yar dhohnaa dhayfeertiiga gali telefoon qof lagu dhigo been aan dhamaanayn waa dhaawac liitay ka xisho dhagxumada dunida dhib keentay faqriga iyo dhibaatada nina kuma dhamaystay kaan maanta dharag hayn marun buu dhaxlaa qurux iyo nolol dhalaalkeed dheef iyo helaa lacag dunida u dhigan sidan kii dhaqaala haysta inuu geesi yahay dhalan aad baa loo dhageystaa ninka geesi dhaladay nasiibkiisu dhaawacay waqtiguna ku dheelaa dhimir lagu tilmaama waa dhabanahaysbe geesinimadii dhaladkii lacagaanay dhali karin yaa iibka garab dhigay dhaandhaan mid caanoo dhoohnaa baryaba qaar dhiirano ayaa yidhi wax kaleeta dhaafo dumarkuna dhankoodii ninka dheefayee ladan waa dhibaato xoog leh nafta way u dhiibaan ninka hadalkan dhaliyow dunya way dhammaataa nafsiba habeen dhaxa dhalanteeda dunyoy harka way dhinacii dharaar baad ku weydaa waxaad waaya dhowrtee adoo dheeh wareego dhabanadu ku xoreen gabal baasna kuu dhacay gacmahaad mar hoos dhigan ninkii dhaawac qabay baahiduna u dheeray adna hawtu dhaafta dharkiisii ma soo xidhan waa dhaca wax waliba maalintaad yar dhirigtaba qoortaaga dhaafo bari iyo wixii dhaca wanaageeda sii dhigo marka dhiin la iibsee saylid loo dhaqaaqshee ruux kaleeta dheelmiyo xare kale dhex joogsado dhiinuu qaloodaa lo'dii uu la dhaqnaa dhashiisu xasuusta soo dhimirka ka yare wuxuu dhiin yaqaanadadna dhugan weyday ma dhaandhaan ayaa tahay wax kaleeta dhaafo kii dhuuxa kabi jiray sirta kula dhadhamin jiray markii xaaja dhabaqdana murug kula dhafraayay dhinaciisa hayn jiray markuu dhiilku buuxsamay dhayaduna ku jeedhe dhoolaanu kula qabin dherag kuugu deeqaa tiri doohanaa tahay dhaayahaygu kuma arag intaan dhaaxa noolaa ka ku dhagaadkaadow adoo dheeman haysto dahab dhoofiyo ladan kaashkana dhigaayo daaraha dhisayo wadku kaa dhex qaada xabaashaa dhexdeedana waxaan kula dhex joogsada camalkaagii oo dhaba kafanaan wax dheer jirin dunyadaad dhisaysa iyo kaashkaad dhigaysaa kula dheelman maayaan haddaad dharagtay maalmahan dadka dhuga hareeraha dheef nooca ay tahay gebigood ma dhuuntaan ninka daar dhex jiifee hadba dhinac u seexdiya kaa dhaxanta jiifee hadduu dhoolda'ayi hadduu daad dhul jiifaba dibadaha u dheelbada rabbiyaa xumuu dhigin dhibna kuma lahaateen isagoon muddow dhigin waqtigana ku dheerayn yoom iyo dhalaarkuna inuu ugu dhiibee bal dhegayso doqonoo imtixaan dhan weeyo adaa lagugu dhowraa dhambaalkaa lagu dhigay raaskaaga dhinacii jawaabtaad ka dhiibtiyo waa dhowr wajiile balan dhowr rawaaya